saa iga barateenba fursadaha maanta waxaan rabaa inaan la wadaago fursad ay bixinayso African Union oo waxa weeyaan waa internship internshipkan waxa weeyaan wadano badan aad marka waxay ku xiran tahay wadanka aad dooranayso wadankaasana ka shaqaynaysaa waan isla arkaynaa saa ognahay African Union waxa waaye xaruntooda ugu weyn waa Addis Ababa waaye laakiin badanaa shaqaalaha waxay ka qaadataa wadanada memberka ah marka saa arkaysaan waa kana waxa weeyaan internshipkii kusoo dhawow ku leeyahay waxaan ugu talagalnay inaan dhalinyarada Afrikaanka ah qaybka ah waxa weeyaan African Unionka inay ka faa'iideystaan fursadaha markaas la soo dhigo oo ay u baahan yihiin inuu bangiga markaas African Unionka ay ka shaqeeyaan African Unionku waa madal ay ku midaysan yihiin wadanada waxa weeyaan Afrikaanka ah kaasoo markaas waxa weeyaan dhaqaalahaas uu hayo looga faa'iideeyo wadamada iyo mashaariicyo badanaas waxa weeyaan lagu fuliyo waxa weeyaan barnaamijkan waa fursad mataqaanaa qof kastoo dhalinyaro ah uu ka faa'iideysan karo waa fursad ma garanaysaa cadaalad ah oo qof walba loogu kala saari doono markaas waxa weeyaan awoodaha isagu uu leeyahay xirfadaha uu leeyahay xirfadahaas waxa kale kamid ah tusaalahan kale personal skillska tusaalahan kale personal skillska tusaalahan ka badanaa waxaa la dhahaa waa xirfadaha oo tusaalahan oo kale qofku problem solving oo kale sidee u xalin karaa oo kale sidoo kale qofkan sidee waaye time managementkiisa oo kale leadershipku sidee waaye communicationka uu la leeyahay bulshada kala duwan oo markaas uu la shaqeynayo sidee waaye teamworkga macnaha waxyaabahaas la xiriiro oo dhan marka critical thinkingska laftigeeda kamid ah qofkan xagee buu joogaa missionka uu leeyahay fikirkiisa qofkan sidee waaye waxyaabahaas oo dhan marka xirfadahaas laftiga yararka waa xirfado iska yar yar qofka looga baahan yahay in markaas mataqaanaa uu lahaado waayo bulshada ka hadlaysa hadal baa lagu dhibayaa problem baa imaanaya inaa xallin karaysid waxa weeyaan qof wax soo saar leh burin ilaa tahayna waxa weeye time management inaad taqaanid waxa weeyaan waxyaabahaas oo dhan waa iska garanaynaa bulshada inaad la shaqeyn karin intaan marka hawl badan baa inoo taallo waan ka gudbayaa qaabka waxa ugu badan waa qabka loo apply gareynaya ugu badan intaan markaan ka nimaano who can apply yaa xirayn kara barnaamijkan waxa apply gareyn kara waxa weeye qof oo wadanadan ka tirsan memberska ah African Unionka Soomaaliya ku jirta Ethiopia ku jirta Djibouti ku jirta Kenya ku jirta yani dhalinyarada Soomaalida wadanada badan yihiin sheegayaan waayahay intaan markaan ka tagno shaqadan sideedaba badanaa waa waxa weeyaan inaad sidoo kale waxa weeyaan aad haysatid shahaado waxa weeyaan jaamacad ama mataqaanaa master ama bachelor haysatid labada midun sidoo kale luqadaha inaad mid taqaanid Arabic iyo English French Portuguese iyo Kiswahili sidoo kale inaad da'da u dhaxayso 22 wixii ka bilaabma ilaa 32 ayaa runtii waxa weeyaan xareysan karo shuruudahaas iyo waxay leeyihiin meel loo raacdo wax weeyaan laakiin inta marka laga yimaado wuxuu ku leeyahay how to apply sidoo loo apply gareeyaa linkigaas halkaas yaala ayaad markaas wax weeyaan aad ku dhufanaysaa kadibna waxay leedahay halka shuruudihiisu aan xagayo waan tagaynaa insha Allah sidoo kale qofka shuruudaha badan laga baahan yahay kale waxaa kamid ah motivation letter qofku inuu qorto sababta uu doonayso scholarshipka barnaamijka internshipka maxay tahay inaad qortid laba waxa laga rabaa baasaboorkaaga saddex waxa laga rabaa shahaadadaada afar waxa laga rabaa CV-gaaga shan waxa laga rabaa recommendation letter oo ka soo qoranaysid institutionka markaas aad waxbarashada ka dhamaysid waayahay intaas markii saaxiibayaal waxa weeyaan laga yimaado waxaynu samayn doonaa hadda su'aalo si baanta halkan kala ku sii dhufanaysaa Soomaalikiis wax dhan waa wada su'aalo weyn si su'aal kasta jawaabteeda waa waxa weeyaan waaye ana wax ugu muhiimsan hadda waxay tahay waa xiraynta waaye inaan programkan aan xirayn waaye halkaas aan ku dhufanayna marka inay la aragtaan rajaynaya saaxiibayaal insha Allah halkaas aan ku dhufanaynaa aan isla socono insha Allah halkan markaan ku dhufano halkan uu ku keenaya halkan markuu ku keeno halkan markuu ku keeno waxa weeyaan harka shaqooyinka halkan yaala hadda shaqadan oo kala deadline-keedu waa December 12-keedu waaye waa asaway location-ku marka shaqada ka shaqeynaysa waa tana hadda kale bal aan ku dhufano shaqadan hadaan ku dhufano waa kana saas ku keenaya asii tixraacaysa waxyaabaha hata qofka looga sii baahan yahay
way ka sheeganaysaa case purpose oo kale shaqadan yaalo kale specific oo kale waxyaabahaas intaas oo dhan markaas sii raacdid oo shuruudihii waxyaabahaas oo dhan iska sii akhrisid luqadihii wixii oo dhan lagaa rabo oo dhan halkaas markaa ku dhufanaysa apply ay tahay laakiin isugu horta aan bal fiirino qaybta kale qaybahana waa Egypt way halkana ayadana waa December saas waaye marka halka lambaradan 2 3 4 ku qoran tahay oo kale hadda 2 haddaan ku dhufano waxaa noo soo baxaysa wadana kale iyo shaqooyin kale noo soo baxaysa Lusaka waa kana wadankan oo marka shaqooyinkaas aad ka fiirsanaysaa shaqooyinka adiga markaas khuseeya aad baratay aad leedahay waa xirayn kartaa ayaa markaas ku soo dhufanaysaa 3 haddaan ku dhufto tusaale ahaan kale waxaa arkaysaa ayadana shaqooyinkan kala soo baxayo asbaabo badan oo badan yihiin daxrintii weyn ku taalo wadanadan Tunisia wadanada kale ayadana waa taa waa dhammaan shaqooyinkaas waaye project manager population social statistics expert inaad tahay accounting assistant inaad tahay coordination assistant inaad tahay waxyaabahaas oo dhan halka marka timaado tan oo kale Tunisia waa kana asbaaba marka sax ayaan ku daalin idinkaas waxyaabahaas oo dhan si fiirin doono shaqooyinka waxyaabahaas anuu kaliya waxaan rabaa waxa waaye aniga kaliya waxaan rabaa inaan markaas wax weeyaan aan eego shaqo ka mid ah inaan magaranaysa markaas aan isla xirino mid uun baynu wax weeyaan ku dhufanaynaa halka markaas aan u nimaano salaanka waxaan ku dhufanaynaa salaanka tan koowaad baan iskaga dhufano halka hadda Kenya ama Nairobi isla tan marka tan koowaad baan ku dhufano waaye halkan markaan nimaano adaa si akhrisana waxyaabahaas oo dhan adaa si akhrisana location adaa si akhrisana halka apply ku qoran tahay markaan ku dhufano apply baan nirahnay apply markaan nirahnay saaxiibayaal halkaan nimaanay emailkii Kenya laakiin adiga waxa laga rabaa mid cusub aad halka maarta halkaas ay ku qoran tahay create an account cusub halkaas Soomaaliya ka keenay calaamad saaxiibayaal halkaas aad ku dhufanaysaa waaye halka markaan ku dhufano wuxuu keenayaa halkan salaanka waxaan gelinaynaa Gmail baan gelinaynaa Gmailka markaan gelino Gmailka saan gelinay haddana wuxuu ku leeyahay waa inaad ku celisaa waaye saaxiibayaal passwordkaagana waa samaysanaysaa passwordka waxaa leenahay tusaale kale here 1 2 3 weyn yar Soomaaliya أنا waxaa saas aad isu raacaysaa here 1 2 3 weyn yar baa raacayna salaam kale marka raacayna marka uu ka aqbalay magacaaga gelinaysaa محمود markaa gelisid halka waxaan leenahay Maxamed oo kale halka waxaad dooranaysaa markaas waxa wadankaaga Soomaaliya dooranay sidaan hadda noo soo direen akoonka waa kasta waa 59 32 63 waa 59 صدّن iyo labo sixty-three soddon iyo labo sixty-three waaye hoos socodsi baa leenahay sii soconno safe baa leenahay safe markaan dhahno oo aan waxa weeyaan soo galno hoos baa u soconaynaa halka waxaad soo gelinaysaa waa CV-gaagii aa soo upload halka blasta ku soo upload garaynaysaa halkan waa cover letterkii oo motivationka letter ayaa soo sheegay halkan waxa weeyaan waa wax ku soo documentskaaga waxbarasho ayaa inta waxa weeyaan soo gelinaysaa halkan waxa weeye waa passportkaagii halkan waxa weeyaan iyaga educationka waxbarashadaada aad soo gelinaysaa shahaadadii intaas horta waxa weeyaan saaxiib ugu muhiimsan skills ka kala hadda ku dhufato